waxaan ima ku soo dhaweynayaa xogayahii hore ee xisbiga kulmiye mudane xasan siciid yuusuf oo aynu sii sagootiyeyno. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan marka hore salaamayaa madaxda xisbiga oo ugu horeeyo gudoomiye ku-xigeenka labaad, gudoomiye ku-xigeenka saddexaad, xogayaha gudoomiye ku-xigeenka golaha dhexe, mas-uuliyiinta kala duwan ee xisbiga ka tirsan, haweenka, dhalinyarada iyo dhammaan mutasharaftan. marka hore waxa aynu tacsi u diraynaa gudoomiyihii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye mudane xildhibaan maxamuud jaacwar faa oo xaaskiisii xalay ku geeriyootay dalka turkiga. ilaahay ha u naxariisto marxumadda, waxaynu ilaahay uga baryaynaa dambi dhaaf iyo in jannadii ka waraabiyo, ehelkeedii, qoyskeedii iyo dhammaan in naga banaynu samiriyama naga siiyo. intaa kadib waxaan ilaahay uga mahadnaqayaa horta inuu nolol igu soo gaadhsiiyey 9 sannadood oo aan ahaa xogayaha guud ee xisbiga kulmiye, oo aan maanta ku sagootiyayo halkan. farxad weyn bay ii tahay, runtii aad baan faraxsanahay. waxa aan hambalyeynayaa marka u horeysa oo mahadnaq waxaan u jeedinayaa marka u horeysa xisbi weynaha xisbiga kulmiye oo ugu horeeya hoggaanka xisbiga, guddiga fulinta ee xisbiga, golaha dhexe, xildhibaanada golaha wakiilada iyo kuwa deegaanka ee ka soo baxay xisbiga, garabyada haweenka iyo dhalinyarada, guddiyada iyo unugyada xisbiga ee gobolada iyo degmooyinka dalka, laamaha xisbiga ee dalalka dibadda, kaadir iyo dhammaan kaadirka xisbiga kala duwan iyo taageerayaasha iyo codbixiyaasha xisbiga dhammaantood aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa. muddo 9 sannadood soo wada shaqaynay, si sharaf iyo wanaag aan u soo wada shaqaynay, aad baan horta ugu mahadnaqayaa. marka aan ka hadlo mahadnaqa guud, xilkaan maanta wareejinayo sida uu ku yimi baan markaa doonaya inaan iyaar idiin sifeeyo. dadka qaar baa waxay yidhahdaan xasan siciid xilkii baa laga qaaday, xasan siciid wuu magaranaysaa cid kale la magacaabay. horta codsi anaa codsaday muddo 9 sannadood oo xilka soo hayay in aan nasto hoggaanka xisbiga oo ugu horeeya guddoomiyaha xisbiga, guddoomiye ku-xigeenka koowaad, guddoomiye ku-xigeenka labaad, intaba anaa doonaya inaan nasto. waxaan aada ugu mahadnaqayaa markaa iyagana ogolaanshaha layga ogolaaday inaan xilka baneeyo oo aan nasto, iyagana aad baan runtii ugu mahadnaqayaa. waxa aan mahad gaar ah u jeedinayaa hoggaanka xisbiga oo ugu horeeya guddoomiyaha xisbiga ahna madaxweynaha, guddoomiye ku-xigeenka koowaad maxamed kaahin axmed, wasiirka arrimaha gudaha ah. waxaan uga mahadnaqayaa marka u horeysa magacaabidaydii ay ii magacaabeen 9 sannadood ka hor xogeyaha guud ee xisbiga kulmiye, anigoo markaa aan doonan anugu la ii gartay. muddadaa waxaa kaloo ugaga mahadnaqayaa shaqadii wanaagsanayd ee aanu soo wada qabanay, iyaga oo macalimiin igu ahaa ama qalinka iigu qabtay siyaasadda, looxa koowaad alifba'da siyaasadda, dulqaad, sharaf, ixtiraam, tusaaleyn, wanaag intaana igula soo igu hayay. waan ugu mahadnaqayaa, runtii aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaana aada ugu mahadnaqaysana madaxweyne ku-xigeenka oo isna muddada aan hayay si wanaagsan oo wada shaqayn wanaagsan iyo ixtiraam iyo howlaan soo wada qabanay. waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga axmed cabdi oo muddadaas 9 sannadood ahayd aanu si wanaagsan usoo shaqaynay. nin mabda' leh, karti badan leh, duruufo badan aanu soo wada marnay, kuwo isaga u gaara ay soo hayay oo aragti siyaasadeed iyo mabda' siyaasadeed oo uu ku hal adag yahay runtii ku soo shaqeeyey. waxaa kaloo isaga ugaga mahadnaqayaa muddadii 3 sano ee u dambeysay
ee aanu labadayadu halkan wada joognay oo aanu si wanaagsan oo walaalnimo ah saaxiibtinimo ah iyo isfaham siyaasadeed oo wanaagsan aanu u wada shaqaynay baan runtii uga mahad celinayaa waxa aan u mahadnaqayaa oo mahadnaq gaar iyagana siinayaa xubnaha ama hoggaanka golaha dhexe xisbiga maxamuud jaamac warfaa guddoomiyaha saaxiibkay cali maxamed cali caliyow mustafe maxamed yoonis oo iyaguna hoggaankii golaha dhexe xisbiga ahaa oo aanu si wanaagsan shaqayn dhow aanu lahayn waxa aan u mahadnaqayaa iyagana shaqaalaha xarunta dhexe ee xisbiga oo ay ugu horeeyaan hana oo ah xogeynta guud ee xarunta iyo xafiiska xisaabaadka guud oo runtii si wanaagsan ila shaqaysay muddadaas aan u wada shaqaynay agaasimaha xarunta dhexe xisbiga masar caydaruus iyo shaqaalaha kale xarunta ayaan iyagana ugu mahadnaqayaa si gaara waxaan u mahadnaqayaa oo aanan iloobin inaan iloobo aanay ahayn madaxweynihii hore ee xisbiga jamhuuriyadda somalilan oo ah guddoomiyihii hore xisbiga kulmiye mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo oo runtii markaan ka hadlo noloshayda qaybta u weyn ku lahaa una sabab ahaa sidaan filayo inaan halkan maanta dee aan joogo markaan dib in yar ugu noqdo 1995 markii dalku dagaalka sokeeye ka dhacay oo suxufi markaa ahaa anigoo nin yar oo dhalinyaro ah xaaskayga iyo carruurtayda intoo kaxaysay markuu dagaalku dhaco adisaba tegey anoo doonaya inaan qaxoonti dalka ingiriiska ku noqon tago dabadeedna iyadoo fiisihii i xaraysan yahay aniga reerkaygaba isagoo wafti uu la socday yimid adisaba muddo 3 maalmood wuxuu igu akhriyay oo maalin walba igula talinayay in aanan dhoofin inaanan qaxoonti noqon inaan dadna haddaan dalkayga iyo magacayga iyo sharaf inaan leeyahay meel gaadho ay noqoto inaan dalkii dib ugu noqdo fiisooyinkayga iyo dhoofkaygii intoon kansalgareeyey isagaa gacanta soo qabto diyuurka ay soo saaray halka ay keenay waxa weeyaan isagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa mahadnaq aan cidila wadaagin haween weynaha xisbiga kulmiye ayaan usoo jeedinayaa run ahaantii muddadaa 9 sannadood ee halkaa joogay haweenku aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa xafiiskaasi aan wada fadhinay haween gob ah sharaf badan mabda' leh iimaan leh dhaqan wanaagsan leh samir badan dulqaad badan shaqo badan oo waxaan ku iri dabeecad wanaagsan oo waxtar leh oo iyagu isxaal og oo tooda bugta iyo tooda dhibaataysan iyo waxa xisbigu u qabanaya isgacan qabanaya aanad u xiyaaxa midna ka maqlaynin waxtar iyo aan magarasa iyadoo aan lacagna aan qaadan cidna wax ku siinba halkaa 24 saacadood wada fadhiyo oon u wada fadhinay dabeedna waxaanu anagu saaxiibo dhow baan noqonay haweenka waanu sheekaysan jirnay wada fadhinay dabeecad wanaagsan baan ku wada joognay meesha dawo kuma nahin kale run ahaantii waan u boholiyoobayaa ka maqnaanshaha haweenka waxa aan markaa filayaa in halkoodii ay ka sii wadaan iyaguna oo ay shaqadoodii wanaagsanayd wadaan oo ay halkaa ay wadaan marka aan mahadnaqa intaa ku dhameeyo iyo in kaloo badan oo aanan dee magarasa kaadirkii iyo raggii buddiga u ahaa xisbiga waxaan doonayaa iyagana inaynu faataxayno u ducayno labadii xogaye ee aniga xogaye guud aniga iga horreeyey ee geeriyooday allaha u naxariiso labadaba labana wanaagsan ahaa waxaa kaloo aan doonaynaa iyagana inaynu u ducayno rag badan oo madaxdii xisbiga iyo mustambeedkii xisbiga iyo buddiga xisbiga u ahaa rag iyo dumarba oo inaga geeriyooday inaynu dhammaantoodba aynu xusno oo u ducayno oo faataxayno xusuusteennuna aanay magarasa ku hayno mar walba qalbiga iyagana waan ducaynaynaa intaa markaan halkaa ku dhaafo waxa aan maanta halka ku wareejin doonaa waan doonayaa dardaaran yaroo kooban xisbiga kulmiye waa xisbi gaamuray runtii u baahan magarasa shaqo badan
hawl badani ina sugayso waxaa ina sugaya doorashooyinkii u horreeyay baa imika aynu gelaynaa oo aynu doonaynaa in magasa ka midho dhalino wada shaqaynteenu waxaynu dhibaatooyinku way iska badnaanayaan duruufo badan oo dalka jira way isbuulaan sidii aynu awalba ugu halgamaynay baynu maantana doonayna inuu halgamno aniguna meel idinkamaan tegina waa idinla shaqaynayaa xogeyaha guud ee cusub ee xisbiga ibraahim axmed raabi walaalkay marna in adeerkay ah oo inala soo shaqeeyo raggii xisbiga ahaaya gowdheer waxaan u ballan qaadayaa inaan la shaqayn doono garabkiisa taaganahay oo aan la joogo meelna aanan idinka tegin xisbigii kulmiye ayaan ka tirsanaanayaa waxaan halkan ku wareejin doonaa xil wareejinta xisbiga xafiisyo badan gobollada dalka iyo degmooyinka oo shaqaalahoodii iyo xafiisyadii oo kiradoodii iyo shaqaalaha mushaharkoodii intaba la bixiyo waxaa kaloo halkan ku wareejin doonaa markaa iyagana degmooyinkii oo xafiisyo laga wada furnaayeen gobolladoo ay naga furan yihiin waxaa kaloo halkan idinku wareejina laamihii dibadda oo runtii iyaguna budul xisbiga u ahaa ilaa 21 dal ayaa waxaynu ku leenahay xarumo iyo laamo xisbiga ah oo u badan dalalka Yurub ay ugu sii badan yihiin dalalka Yurub waxa weeyaan waxa filayaa 13 dal oo Yuruba ayaa waxaynu uga furan xafiisyadii oo si volunteer u shaqeeyo guddiyadoodii waxay dhisay yihiin qaadaanka xisbiga iyo qaadaanka guud dalka toos bixiya hababku si badan dalka Ingiriiska oo marka la eego gobollada boqortooyada Ingiriiska sida England Scotland Wales ay ka furan yihiin iyo gobollada kale England oo kaliya marka la eego gobolladeeda ilaa 7 xafiis oo guddiyadooda dhisay baa ka jira Yurubta kale waxa ka wada furan yihiin dalka Sweden oo kale markaan aniga cadare ayaa soo marnay xilligii campaign-keenu socday Yurubta marka laga Sweden 7 gobol ee ugu waaweyn dalka Sweden 5 kamid ah ayaa waxa ka furan yihiin xafiisyadii iyo guddiyadoodii u gaara iyo guddigii guud ee dalka samaysnaa North America ayay ku leeyihiin oo Mareykankii inaga furan yihiin Canada waxay inaga furan yihiin Australia waxay ka furan yihiin xafiisyadii oo kale New Zealand ilaa 21 dal ayay inaga furan yihiin qaranka xisbiga bixiyaan waxaa ka qayb gala taageerayaasha xisbiga iyo codbixiyaasha xisbigu qaranka guud ee xisbiga oo ay ku soo daraan xisbiga kulmiye waxa uu kaga qayb galay qaarankii abaarihii iyo duufaankii ka dhacay dalkeena gudihiisa gobollada xeebaha ay galbeed xisbigu $10,000 buu bixiyey qaarankii dalka Soomaaliya beled weyne loogu gurmanayo ay bixiyeen Somaliland geysay xisbigu kaalmadiisa ay ku daray oo ka timid taageerayaasha xisbiga iyo codbixiyaasha xisbiga oo $10,000 ay ku darnay xisbiga waxa uu diiwaan gashan ilaa dhowr boqol oo kun oo qof oo ah xisbiga oo membership-kooda qaatay waxa aynu qorsheynaynaa markaa inaynu bixiyaan qaaraankii la bixiyo sida imika la qorsheeyay golihii dhaxay iyo membership-ka xisbigu intuba qaaraankii oo dhan la bixiyo taas baynu iyadana ayaynu ku dadaalaynaa waxaan xafladeyda si farxad leh mar labaad ku soo koobaya oo si qiiro leh oo sharaf leh aan farxad leh ugu soo koobaya waan idin hiloobayaa waan idinku faraxsanahay si wanaagsan baynu u soo wada shaqaynay waynu wada joogaynaa xisbiga kulmiye ayaan anigu ahaana doonaa duqaad iyo samir marka qofku uu mabda leeyahay oo mabdiisa ku adag yahay oo ay ka dhaadacsan tahay mabda wax uu aaminsan yahay inay jirto xisbigiisa meel kama tago dadka ay wada shaqeeyeen xisbigaasna meel la kama qabto mabda baa lagu wada joogaa isku aragti siyaasadeed baa leeyahay qaranka loogu wada shaqeynayaa xisbiga loogu wada shaqeynayaa si himilada qaran aynu higsanayna ay meel u gaarsiino ayaynu wada shaqeynaynaa u wada joogaynaa dadka xilka sugaya insha Allah xil way heli kuwii aan xil haynina waa inay ku samraan aniga cidna igama samir badna madaxweynaha imika noloshayda hay siilaayo aan ka hadlayo
saddex xil buu ii ballan qaaday maalintii u horreysay wuxuu ii ballan qaaday uu yidhi waxaan ku siinayaa afhayeenka xisbiga afhayeenka madaxweynaha waayahay baan loo anoo sugaya ayaa saaxiibkay cabdilaahi cukuso lagu magacaabay deedna wuxuu o odeer cukusa uu magacaabay waa kaasoo odeer cukusa dee waa saaxiibkay kuleeg baan wada nahay isku mihdad baanu nahay waa oray alxamdulilah laakiin adeer waxaa hadhay mataqaanaa waxaan kugu magacaabayaa agaasimayaashii guud baa hadhay bal halkee maadaama suxuuf saan jirtay agaasimaha guud oo warfafada ku magacaabi doona saaxiibka faysal cali sheekh oo aanu shuraaka naho shirkad wada leenahay oo jamhuuriye wada leenahay ayaa kusoo baxo loo magacaabay markaasuu inaa lillahi wa inaa raajicuun adeer horta beelaha waati wax lagu qaybsan jirayoo wargeyskiinii jamhuuriyeysa idinkaaba beel gaara noqdayoo faysal baa wallaahi dee magaranaysaayoo ragan qaadi waayena ii keen arba faysal caliha oo waaba walaalkay saaxiibkeenu shuraaka nahaye aad baan ugu mahadsantay madaxweyne alxamdulilah markaasuu yidhi wuxuu yidhi laakiin waxaa hadhay adeer hay-adihii madaxa bannaanaaye kuwaasaa midku magacaabaya halkee baad jecesha waxaan ku yidhi hay-adda anigu hay-adaha kale ma garanaye hay-adda xuquuqal insaanka maadaama suxufi soo ahaa iyaga la soo shaqeeyey la xili jiray taasaa shaqadeeda garanaya waa sax iyadan ku magacaabi doonaa inan aanu ilmaadeer nahay oo ina xaaji cabdilaahi oo guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda hargeysa ahayd oo dabeetana shaqada ka tagtay ayaa lagu magacaabay si olla adeer dumarkiibaaba iqabsadayoo dumarkiibaaba ayaaba yidhi aniga hay-adii waxba nagama soo dirine bal adeer si un baynu yeeli doonaaye markaasaan alla oo waaba in adeertay waana macallimadaydii waa okay markaasuu adeer way iimaan leedahay marka waa lagu kalso waxaan taageer soo qaadanayaa rag dad aan xilli loogu ballan qaadin oo meelaha cararayo 10 cisho kula jooga xisbiga digdig lahaa ayaa waxay yiraahdaan xil baa la magacaabay marka inta la tagaalo la yaaca meel kale loo yaaca yani waxa weeyaan marka horeyso waa in wixii alla qadaray yahay ku qoray baad ayaad qabanaysaa marna mabda baad leedahay oo aan kaga tagin marka mabdayeeni baynu ku wada joogaynaa waxaynu ku wada joogaynaa iimaankeeni wanaagsanaa waxaynu ku joogaynaa sabirkeennii waxaynu ku joogaynaa shaqadeennii oo aynu ka sii badinaba oo aynu u diyaargarowno doorashada golaha dhexe soo socota in doorashada baarlamaanka ee soo socota waa la tartamayaa xisbigeenna yaan golaha baarlamaanka laynaga badin waa inaan insha allah haddii alla idmo u hawda halganna halkaa hadalka waan dheereeyey mar labaad waan idin wada mahadnaqayaa si farxad le baan idinku mahadnaqayaa qalbi saafi iyo niyad idin jecel baan idinku mahadnaqayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu